Puntland ayaa sare u qaaday amniga magaalooyinka waaweyn ee Garowe, Boosaaso iyo Gaalkacyo kadib markii laamaha amnigu ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen xubno ay ku eedeeyeen inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ama Daacish iyo hub Soomaaliya ku cusub oo la sheegay inay wateen. xubnahan ay laamaha amnigu sheegeen inay qabteen waxay tiradoodu ku sheegeen ilaa 7 xubnood. dadkan laga shakisan yahay ayaa la soo qabtay kadib markii la helay xog ciidan oo sheegaysa inay wateen hub qaarkood uu ku cusub yahay Soomaaliya, ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Puntland oo la hadlay BBC. xubnaha la sheegay in la soo qabtay ayaa qaarkood la sheegay in lagu qabtay diyaaradaha bilaaduulyaha gaar ahaan nooca isqarxiya ee loo yaqaano kamikaze sida ay sheegeen laamaha amnigu. diyaaradaha bilaaduulyaha ayaa aad looga adeegsadaa dalka Yemen, iyadoo Puntland ay filayso inay ka soo galeen dhinaca magaalada Boosaaso, iyadoo sheegtay in xilliga la qabanayay loo sii waday dhinaca magaalada Gaalkacyo iyo gobollada koonfureed ee dalka. saraakiisha ka tirsan ciidanka amniga Puntland waxay intaa ku dareen in diyaaradaha iyo dhowrka qof ee la qabtay lagu qabtay inta u dhaxaysa Garowe iyo Gaalkacyo. markii aan dabagal ku samaynay kadib waxaan gacanta ku soo dhignay tiro kale oo dad ah oo looga shakisan yahay faldambiyeedka, ayuu yiri sarkaalka u hadlay ciidanka amniga Puntland. diyaaradaha bilaaduulyaha oo tiradooda lagu sheegay 5 diyaaradood waxaa hadda gacanta ku haya ciidanka amniga Puntland, waxayna sheegeen inay sidoo kale hayaan 7 qof oo la tuhunsan yahay oo ay ku wadaan baaritaanno aan faahfaahin badan laga bixin. haddaba maxaan ka naqaanaa diyaaradaha isqarxiya ee loo yaqaano kamikaze? diyaaradaha noocani waa kuwo ku cusub goobaha dagaalada, waxaana hadda aad u isticmaala Ruushka, Ukraine iyo Xuutiyiinta Yemen, inkastoo ay jiraan dalal iyo kooxo haysta. waxaana dalalka haysta ama samaysta ka mid ah Maraykanka, Israa'iil, Kuuriyada Koonfureed, Turkiga, Shiinaha iyo Iiraan. waa diyaarado xajmi ahaan yar, xawaarahoodu gaabiyo, joogga ay ku duulaan uu yahay mid aan la arki karin, masaafo ahaanna duuli kara maylal badan, waxayna sidaan qaraxyo. waxay awood u leeyihiin inay ka dhuuntaan raadaarka. waxay dul heehaabaan bartilmaameedyada, marka la cayimo bartilmaameedkana way ku dhacaan iyagoo ku qarxa islamarkaasna burburiya. dadku waxay u yaqaaniin droonta isburburisa. waxaa inta badan loo isticmaalaa inay ka tallaabaan safafka hore ee dagaalka oo ay cadowga ka soo maraan gadaal, ayna halkaasi ka faltamaan. sidoo kalena waxaa loo adeegsadaa in lagu weeraro gaadiidka iyo birta culus ee talisyada. tusaale ahaan Ruushka wuxuu adeegsaday droontan ay Iiraan samayso ee loo yaqaano Shahiid 136, taasi oo baalashadu ay gaarayaan 2.5 mitir. noocan waxaa qaban kara raadaarka. dagaalka Ukraine ka hor ayay Iiraan siisay Ruushka tiro aan badnayn oo droona. midowga Yurub iyo Maraykanka ayaa ku eedeeyay Iiraan inay si joogto ah diyaaradahaasi u siiso Ruushka. markii ugu horreysay Ruushku waa uu isticmaalay diyaaradahaasi isagoo ku weeraray saldhigyo military oo Ukraine ay leedahay. Maraykanka ayaa isna Ukraine siiyay daroonadan, laakiinse wax badan lagama oga sida baahsan ee loo isticmaalay. inkastoo qiimahoodu kala duwan yahay, waxaa la tilmaamaa in qiimahoodu u dhaxeeyo $50,000 ilaa $80,000 oo dollar. maalin ka hor ayay ahayd markii gudoomiyaha gobolka Nugaal ee caasimadda Puntland ee Garowe, Cabdiraxmaan Abshir, oo isna warbaahinta u sheegay inay Garowe soo galeen sharwadayaal dad uu ku sheegay oo ka soo horjeeda amniga, isagoo dadweynahana ugu baaqay inaysan guryaha ka karayn lana soo socodsiiyaan dadka ay ka shakiyaan, iyadoo la kordhiyey baraha kantarool iyo baaritaanada amni ee caasimadda.